بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كوبية تمناد أو كتاب كيني ارق نفسك وأهلك بنفسك. نفتادنا كتف أهلكاغنا كتف أضيء لفتادو. waxaan soo gaaray qeybtii u dambeysay ama mulxaqii saddexaad oo ka hadlaya bacdu acraadi asixri waalmasi waalcayn, calaamaadka lagu garanayo in qofku sixir qabo ama masi uu qabo oo jin ah, iyo walcayna caynta calaamaadka lagu garanayo qeyb ka mid a. macnaha haddii uu noo soo sheegay sheekhu waxyaaba fara badan oo ku saabsan arrimaha maaragtay tufidda iyo ruqyooyinka hadduu noo soo sheegay, wuxuu hadda ku khatimayaa kitaabka qeybo ka mid a ama qeyb ka mid a calaamadaha lagu garan karo qofku inuu sixir qabo ama masi qabo ama cayn qabo. wuxuu leeyahay marka ina lisixri sixirka waxa u sugnaaday iyo walmasi jinka taabashadiisa, walcayna caynta caraadan calaamado tactari lmariida mariidka ka muuqanaysa, wahiya calaamadahaasi mutashaabihatun way isshabahdaa, way isu egag tahay, wa mutadaakhilatu waana isdhexgalgashaa ilaa xaddin ilaa iyo xad laa yumkinu ayna suuro gelayn macahu maciisa alfaslu baynahaa in la kala bixiyo. macnaha calaamaadka sixirka iyo masiga iyo cayntu way isu egag yihiin oo way isku qaldamayaan ama way isdhexgalaan. suuragalna ma aha in si fiican loo kala saaro la yidhaha qofkan waa masxuur ama masi baa taabtay jin ama cayn, aad bay u adag tahay buu leeyahy. walaa yushtaradu lama shardiyo wujuudahaa helitaanka calaamadahaas jamiican dhammaantood cinda almariidi, mariidka in laga wada helana shardi maaha. gidda calaamadaha in laga wada helo soo socda shardi maaha, bal waxaa iskaba dhaaf in laga wada hele qad yadharu waxaa muuqan karta caleyhi korkiisa ka muuqan karta atharu bacdihaa aathaarta ama calaamadahaas qaar ka mida athaarteeda iyo raadkeeda baa ka muuqan kara. kamaa annahu sida tajdaru al-ishaara ay muhim u tahay inaan tilmaano hunaa halkan ilaa ana bacda hadihi alacraad acraadaas ama calaamadahaas qaab ka midahi qad yadhar wuu muuqan karaa lisababin cudwiyin baxtin, sabab oo qofka meesha ay iska xanuunayso si caadi ah isagoon jin iyo waxba qabin, ow limaradin nafsiyin ama marad nafsi ah oo qofku maaragtay ku dhaca neerfa iyo wixii la mid a. laa calaaqata lahu ama marad nafsi ah laa calaaqata lahu xiriir aan la lahayn albatta bisixri sixirka aan wax xiriira la lahaynba, albatta go-naanba aan la lahayn. laa calaaqata lahu macnaha ow limaradin nafsiyi, maradka nafsigaah waxa weeye qofka deganaansha la-aan iyo shoog iyo waxyaaba lamid a, ama maaragtay wax maskaxda ka gaaray, ama wax maaragtay qofka waalle ay ku sugan tahay, ama wareer kaloo meel kale ka qabsaday baa nafsi laga wadaa. cudwina waxa weeye xubin qofka xanuunaysa. marka laa calaaqata xiriir lahu uuna u sugnaanin baa laga yaabaa albatta go-naanba bisixri walmasi walcayn, sixirka iyo masiga caynta midna inuusan xiriir ballanahayn baa laga yaabaa calaamadahaas ka muuqday. falyutanabah ilaa daalika arrinkaa ha lagu baraarugo, dad badan baa marka arrimahan isku qalda wey. wasa adkuru hunaa halkan waxaan ku sheegayaa daa'ifatan kooxo min hadi alacraad calaamadaha ka mid a, iyo walatii taasoo yumkinu ay suurakal tahay taqsiimuha inaan u qaybino awalan ilaa qismayna laba qaybood aan u qaybino. awalan acraad calaamado ama yacni calaamaad qad tusiibu lmariida mariidka ka asiibi karta qabla ruqyati intaan ruqyada lagu bilaabin, calaamaad qofka ku dhici karaa jira oo ka muuqan kara. minhaa waxaa ka mid ah alinqilaab almufaaji min maxabati shayin maa ilaa karhihi. wuxuu yidhi alinqilaab almufaaji, inqilaab ama isbeddel oo mufaaji ahoo kadis ah, min maxabati shayin shay jacaylkii yacnii uu ka wareego ruuxu
ما إلى من محبة شيء ما شيء وكوريجيو إلى كرهه شيء ونبعي سنة أنا أقول لي هاي انقلاب المفاجئ انقلاب أو كدسة أو من محبة شيء ما شيء محبديس وكوريجيو يقف كانقلابيو إلى كرهه نعيب كيسنا وانقلابيو معناه يقف شيء وشعلا أو يمركي وهالمر ونعياوي أو العكس أما تا عكسي هذا أو شيء وكراهي سنة أو نبعا يعملها هالمر قفك وسكتش علانيا مركوا انقلاب نوع عاسة ومفاجأة وسكدسة ودعايا ويان أو لليابو مثل لبعد كثرة الأمراض وتنوعها عذر بدن النوعية هذا يقفك اسكو أركيا مع عدم وجود سبب طبي يسوغو أي سنجرين هدنا سبب نخترنمو أو واضح لذلك أركا عدينيس قفكم معنا عذر بدن باهيا ميل والباليغا هيا أبو ليهي أني وحنوسنو ليهي واتاهيا واكن إن هذا نختار لوجيو سبب طبية lagu arki maayo oo cad oo qofkaani inuu xanuunka qaba midda saddexaad ashucuur bildiiqi fi sadri wuxuu dareemayaa ruuxu ciriiri xagga qalbiga bikhaasatin gaar ahaan bacda salaati alcasri walmaqrib salaada casrka iyo maqribka markuu tukado ka bacdi ayuu wuxuu dareemayaa ciriiri iyo lab ciriiri iyo walbahaar buu dareemayaa nambar afar waxa weeye karaahiyatul camal shaqadii buu nacayaa أو النفور من المجتمع أو مجتمع أيو كعرريا ميلا اللي يسوي مادورن أو الدراسة أما وحبر الشادي بكتجية ما حب العزلة يسوي شعلي سنة يهدنا العزلة إنه ضدكي كد إرادة أو ضدك كدح بحو وكدح بحو ضدكي إنه كده حشر مجتمع إنه وحبرته منه مرة شقدي حتى هو نعيا مدة شنات تخيل مريض أو تخيلنا يا فعل أشياء إنه سمينه وهو لم يفعلها يسوون سمين مثلا بروح يسرك يا وليه والما قرعتها وقرعدي ما قديس وقدي ما نقدي مركز تخيلات وحبالة توسيا يسوي قديني يسوي قرعنا يسوي سمينه وإحنا ما سمين تخيلات باللي هذا حاجة مسكحة بمارة كأمسيها إنه واحد سميه وحبا معناها لا توسيا إنه عناي أو كلام أو سميه ما نسمين تلحاد شحوب في الوجه وجهيس أيام مذوبانيا أو سفرة فيه أموبة يعني وحن قنايا سفرة وحو مارتي سي أبوريسان أو سي مارتي وجهيس أسن نورين أو ظهور أثر أما آثار بابا كم قنسة كدمات في الجسم جسدك أو كلا دمات مائلة للزرقة دبعا وحد موديد يعني برو يرير أما ملا يرير ومارتي يعني مذبقة أيها كو أركيسا في الجسم جسد كمائلة إلى الزرقة وبلو أو السمرة أما مارة الجدود دون ما سبب ظاهر لذلك وح سبب أو أرنكا سببي أو موقنا ينمتشرو وشي يسيو دنبا اسبدلن وفكي من نوريو سفرة لغو أركيا بصاص وارسكر فاتسي هاي مركا غادو تشيركا وحا لغو أركا مارتي قوبا ومارتي زرقه بلوء أما قوبا سمرة أو سيئر قدودن أيها لغو أركيا سومارت wax haya oo hadda cudur oo la sheegana ma leh acraadda waxay ka mid tahay marka sixirka iyo jinka iyo masiga iyo caynta kow midda toddobaad xuduudu sudaac mutakarrir sudaac baa mar walba kusoo noqnoqonaya madax xanuun oo xuma mufaaji'a ama xumad baa markiiba iska qabanaysa maaragtay isagoo aan waxba hayn oo xanuun oo hadda laga arkayaana usa jirin haddii dhakhtar la geeyo wuxuu mar walba madax xumad baa iska haysa مدة سدادات كثرة حدوث مشاجرات ما إني وحبضنا يا كثرة وحبضنا يا حدوث إني دعان المشاجرات ضد يمرن بين الزوجين لبضع اسقبته وازدياد النفور بينهما لبضع ضوءات مارة أكل الضيضية أو فيما بين أفراد الأسرة أما قيس كالحديثة أو مارة قفكي حنون سنة وكالضيضية لأسباب تافهة أسباب يربو مارتي كحناقيا وريركو دنبو كتغيا وهلي مارتا انو هبل ما اركي كارو هبل با ايغو تاغن هبل ايغو تاغن ان بساسو اورانيا قفكي مر والبا خلاف ون هورو u jirin oo aan isagiyo zawjadiisa ama naagtiyo zawjkeeda aan ka jirin ba imanaya
iyo nufuur iyo ka didsanaan uu dadkii ka didsan yahay ka mid ahaa qoyskooda asbaab yar baana maaragtay uu ka xanaaqaya. midda sagaalaad tawahumu umalayn ru'yat khayaalaad xaalal yaqda, khayaalaad iyo waxbaa markaas hadba soo hormarayo u arkayaa inta uu xaalal yaqda isagoo xaaladda uu soo jeedo isagoo soo jeeda iyo haddana fakeraya haddana filim baa u daarmayo waxba takhayulaad buu arkayaa. midda tobnaad alkasalu wahsi iyo walkhumuulu iyo maaragtay yacni caajis iyo washucuur bilijhaad almustamir inuu dareemo daal oo mustamir ah iyo wa dacfu shahiyati lidcaam raashinka uusa abitayd u hayn oo rabitaankii raashinka uu ka daciifay. intaasna waa lagu arkayaa wahsi iyo khumuul. khumuulku waxa weeye qofka caajiska u afka iyo iska hamhamaansanaya mar walba iyo washucuur bilijhaad, ijhaadkuna waa daalka almustamir daa'imka wa dacfi shahiyati iyo rabitaanka oo daciifa lidcaami raashinka rabitaanku inuu cuno rabayay oo meesha ku daciifta waa abitayd la-aan wey. midda koobeed shucuur mutakarir dareen soo noqnoqda bicadami alitizaani fi lmashi markuu soconayo aan si fiican uusa u miisaanayno lugihiisa aad moodid inay maaragto dhulka aysa si fiican u qabanayn. midda 12 tikraar soo noqnoqosho simaaca daniin inuu danan ka maqlo ama dhawaaq fii kilta aludunayn labada dhagood yacni labadoodaba oo fii ixdaahuma ama mid labada dhagood ka mid a iyo qofku wuxuu ka maqlayaa dhawaaq iyo daniin qaw inay leedahay oo kale. midda 13 xuduuda aalaam waxaa ku dhacaya macnaha xanuuno fii mandiqati raxim dumarka khaasatan meesha dhinaca raximka binisbati limra'ati haweenta aw nasiif ama dhiig ayaa furmaya khaasatan fii fatrati alxayd gaar ahaan waqtiga xaydka aw tikraar xusuuli istixaada ama waxaa kusoo noqnoqonaya xayl shuban wax oo kala ah baa kusoo noqnoqonaya haweenta mana aha xanuune iyo maaragtay yacni wax caadiyahe waa wax maaragtay ka iman kara sixirkaa la sixray ama caynta ama waxaan ku leeyahay jinka ayaa ay la socotaa wey. midda 14 xusuulu alqadab shadiid inuu qofku mar walbaba caro aada u daran uu caroodo liadnaa sababin sababta ugu yar wax yaroon macnaba lahayn in laga xanaaqin inuu markiiba si xun isagu uu uga maaragtay caroodo. midda 15 raqbatun mustamira fi nowm yacni inuu jeclaysto si daa'ima inuu iska hurdo raqaba jeclaansho mustamira oo daa'ima fi nowmi hurdadu mar walba inuu jecel yahay inuu seexdo. waalmucaanaat min annowm althaqiil alatii yascubu macahu alistayqaad iyo walmucaanaat inuu ku dhibmuto min annowmi thaqiili hurdo culus alladii yascubu macahu taasoo ay adag tahay alistayqaad in la toosiyo sidii qof la arooriyey hebel waa la arooriyey oo kale waxay soomaalidu yidhaahdaan weeyaanoo macnaha mar walba inuu hurduu rabaa hadduu seexdana lama toosin karo. 16 simaacu haatifin haatif buu maqlayaa yunaadihi u dhawaaqaya bismihi magaciisa walaa yaraahu umana jeedo hebelow u maqlaya gadaalu fiirina wax u yeeraya male haddana hebelow buu maqlaya ama heblaay wax uu yeerayana male. 17 xuduudu alamin mustamir xanuun oo mustamir oo joogto ah ayaa ku dhacaya wa mutanaqilin kaasoo haddana guurguuraya fii asfali dahri dhabarka qeybtiisa hoose oo umase fil wasadi ama meesha dhexda ah oo dhabarka dhexdiisa ah oo bayna alkatifayn ama labada garab dhexdooda ayaa xanuunaya oo maaragtay haddana wuu guurguuraya mar wuxuu tegayaa garbaha dhexdooda mar wuxuu tegayaa halkaa araxda ah oo maaragtay caloosha qeybteeda dambe ah marna salka hoose oo dhabarka ayuu tegaya. nacam midda 18 taxasus jildi waxaa ku dhacaya qofkan taxasus jildi oo jirka oo iscuncunaya wey. taxasus jildi waxaa la yidhaahdaa yacni waxaan allaajiga la yidhaahdo oo dadku isla xoqaan ayaa ku dhacaya mutaraafiq maca shucuuri bilxoka oo mutaraafiqa oo qofku uu macaansanayo maca shucuur bilxoka oo in la xoqo uu dareemayo aada u macaansanayo. wa duhuuri iyo inay daahirto intifaaqaad bararo
أو حبوب في الجسم أحيانا أما جسد كيس فندوب كسو يا واحد سومال أو تقانو ومارة النبرة وجهه أما مارة تشيركورن أي نبرة كسو بحبحان أما انتفاق ميلا يصوبر برران يوحي اللمدة مدة سقاليته من الحدوث إسهال شديد متكرر إنه كله الروحة شبن درن أو متكرر سون نقطة إسهال كوا شبن شديد درن متكرر سون نقطة أو كثرة الغازات في البدن أما علوش إنه غاز يوحس مرولبا ونف مارت يبوحنا يسو مرولبا رو إنه نف صده أو الحموضة غاز إنه دريمه أو الحرقان أما علوش قبته أو الإمساك المزمن أما سحرده كبا إمام ويدو أو وحيبا كودغان روحا وسحرده كودغتو مدى لباتنات وحوية ضعف القدرة على الإبصار أرقي إني مارتي وديسي أي ضعيفته إيو زيغ واضح في النظر إيو زيغ أو عد إنو كدعو هاد أركتدا غشاوة إن هبينو إنو كدعو سفي عنو سوحو أركينين مدى كوبي لباتنات تمكن الهم والغم والحزن إني مكان صدر روحاس أو كدغو الهم همجا والغم غمجا والحزن يحزنجا والتيران يمرق يوح لمدا والكآبة كآبة داسنا وحوية روحي أو مارتي إسكا مروجيسن أو مارتي تيران إسكايش كآبة وتيران يلا والأزق إيو روحي أو إسكا مارتي مقن والقلق قفكي أو شوكسن والهلع قفكي أو بقية والفزع أرججح والخوف الشديد يعبس الدرن أي قفك السجو إيمانية مد الله بيلباتنا الوسواس القهري وسواس أو خصب ومر والوسواس قهري أو قهري أو قبصدي سجدن بوحول بك وسواسيا هلا يابا ويلك إنه تمنشر لقو أو مارة مركو حكونا يو هلا يابا إنه ما هدو جنابة كل عضو ما كذا وشنشر لحشر يوحكب ويسكقوا بيستو مربول بير هذا دو ويسي سنة إنه يرى ويسدي تام معها هدو مارتي سكرق يو مارتي وصاخذة من نجاساتك إنه يرى نجاسي سفع علمات دقيم وسواس أو قهري أو نفط أو كان أو قهري صدح يلا باتن الشرود الذهني قفكي أو مقنات شوكتاه المستمر ومستمرة وكثرة النسيان إياه المان بدن شرود الذهني ومقنها شوقوي وفي شوقا مقنة ومرولبا مسكحة سمالك لك فكريش وإسكتنا يقاقيا مرولبا وحكا لا أدار ميا سومارتي مدى أفر يلباتنات السدود عن ذكر الله ذكر إلهي ولقى علينا يروحي والنفور من فعل الضاعات كعرر وكعرر يو ضاعات كالصمين توضا يلا مساجدي يا جماعوينك يا وحب وكعرر يا أما ذكر إلهي مرة بموزك يو وحيابة يو فيلم يو مسلسلات يو وحا سوچ عليها روحه والوچرا كاسنا شان يلا باتنات خروج رائحة عرق غير طبيعية خروج إنه كصوبه رائحة يعني رائحة عرق لذت أرية أو غير طبيعية عن طبيعهين أو رائحة غريبة أما رائحة أما غريبة أو قرمون أو كريهة أو كراهسنة يولا نعيو يشمها المريض مريض كلفتيسو أو أرية وحبا أرية سنكيسة وحبا سارا قرمون با أرية أما إساقي با مارتي لذت حن كسو أرية أو مارتي عرق حن أو غير طبيعي كسو أرية أما إساقي لفتيسي با مارتي قرنو دنبا أرية أمر والبا أفقول ليه وقال الله يشمها وحانا لغيابا إنو سنكدري من إساقي لذت كيسا إيو أركاس أرية من في جواري قفكي إساقي جوار كيسا جوغا مركا إساقي أيا إسو أرية أو عرقيسا أو لذت غير طبيعي يوليه هاي وأبو مارت أولي ديا هدنا لذت كيسو وحليه وحقرمون أو كره سنة وغلا يشمها إنو سن كأورينين بالغيابا من في جواري وقفك إساقي جوار كيسا هلا جوغا أما دينا فرديا إضافة إلى كثرة تستصب بالعرق يضعو لقود درايو هدنا كثرة تستصب بالعرق قفك أمر والبا إسكت ديديا أو الحاجة المستمرة إلى التبول أما مرول بوحو دونيا إنو سوق كاتشو كادي بأمارة مرول بهيسا دو تاقا مسخوشينا كادي ساسي كإيمان ميسو
علامة لحية لباتناد ضعف القدرة على الجماع. ضعف القدرة وها ضعيفة أود على الجماع. الجماع أود يقول لي هي أما يقول لي هذا ودواعيه إيو وحيابها دواعيدي جماع أوردن أيوس أودي كرون ضعيفة من قبل الزوج النكاح أو انعدام الرغبة في ذلك من قبل الزوجة. أما ناكتي ما بدون يسبب وحرقباب وما هيسو إن الجماع سميسو. أما نينكي بان جماع دونين وما رأيتي أن أود بهين دواعيدي حتى الجماع أنا ما هيو نيانا وما هيو ما رأيتي همدنا ما هيو وحي أوردن مارت ناكتنا مركل السؤال يدنا ما دونيسو ومربطو وين كرهسان يساوي. تضبي لباتن تكرار الرؤى والأحلام إن يكون نقطة ريوين إيو قرو المزعجة أو قفك كأرجع جحينيسا. الكوابيس وحل يراهدو كوابيس معناها وحوي قرو إيو وحيابا قفك وكن حيو همينك وأركيو كالرؤية حيوانات مؤذية مثلا وهو أركي حيوانات كضدك الربا كثعابين مصاص سوداء مدمدو أو كلا أو كلاب أما أي مدمدو أو قطط بسلام مدمدو وهميك كريونا يا كقرويا أو غيرها أما غير كود كالجمال سيد قال مدمدو أو مثل رؤية مقابر قبريال تصيا أو مزابل أما ملقى شنقبة تصيا أو مثل سقوط مفاجئ شاهق يعني سقوط مفاجئ صدعتان ومارة اللياب لشاهق ملدير وكسر دعيه أو مثل غرق بماء يسوق بيكو غرقومي وبيكو دحدعاي وكو هفتونيا ونحو ذلك يوحي لمده هودن وحيابهاس أيا مارتسي كسو الله لبشاء وقود عيو. سداد يلباتن تكرار الكلام هذا العلنتيس في أثناء النوم مركأ ساحنا يو سهرده أي هذا البا معناها ومر والبا مارتي كعل علينيا. وكذلك سدوك لاستكاك الأسنان تشرقسي وإلكها اسكو تشرقسو إلكها اسكو لسو مصحوبا يسوى إلا سعوته بصوت ظاهر صوت ظاهرة ولا سعوده قرع إلكها اسكو سينيو أو التأوه والأنين أما يسوى إنو تاهو أو يراه تأوه إنو يراه والأنين إنو تاهو وحيابها أسبا مارة لغا أركياو. سقالي اللباتن الشعور درين المتكرر سؤال الله لابتا بالثقل على الصدر لابتا معناها وكعسلانا يو حال نومي مركو هردوه لابتا أيا مارتا علايس كفوليا لابتا أما الصدرقة أيا علايس كفوليا مركو هردوه. تصدنات تكرار حدوث مشي في أثناء النوم سو نقشو إنا يدعدو الصعد في أثناء النوم انت هردوه يو معناها انت استاقو بصعونها يابا. أو مثل تكرار الأرقي إنو ما وحو سو نقنا إنو مرقو أو قيليو أو القيام أما إنو سو يستاقو مذعورا يسوى أرقا قحسن من نومي هرددي سو كالصوت سو بودو أو قيليو. ثانيا مدى اللباد قيبت اللباد وحوي أعراض وعلامات قد تعتري المريضة مريض كاللغو أركي كرو في أثناء الرقية انت رقية اللغو هو صورة وحوي انت الرقية اللغو دين انت اللغو بلابين كوا نوا كوا مارك الرقية اللغو بلابو يعني إيمانا يو كوغوهر يا السرع قفك إنو الصوحو أو التشنجو أما أمارة يعني وقفكي سيدي واحد عيو كلا نقضو تشنجكو سرعة أيو كيري هاي وانا مارة إنو دبولمو مسكحدي دبولتو يسوون دعن ضيق الصدر اللابتيس أو مارة عرير النقطة تحرك أهداب العينين عندها بالشوضة أو دقاتيو تحركا سريعا سمارة الدقدقة أو دقاتيو بلك كسيو القرآن كله أخريه. الصراخ الشديد قيل الدرن إنو قيليو مدى شناد حركة دقدقاق ومضغ ومغص وصوت صوت إنو كيماده قرقعة في البطن علوش إنو قرع كيرته أو انتفاخ فيه أم علوش أي يعني أي سو فورتو. مدى اللحاد تغير الصوت صوت كيسو اسبدله واستار أصوات غريبة هي صوت غريبة أو مارة مركا أيضا كالصوبحة سوى صوت كيسو ما صوت كلا الله الله. انتفاخ أحد الوديجين لبدا حول المريض متكمد إنه يعني صاه
usoo maaragtay usoo fuuro ghalabatu nacaasi aw nowm inay ka qaalib noqoto hurdo ama lulmo. nacaasku waa lulmo, noomkuna waa hurdada. midda sagaalaad addaxiku inuu qosol keeno aw ilbukaa ama oohin duuna maa sababin daahir wax sababa oo maaragtay keenana aan la garanayn. alcaashir midda tobnaad addowraan waalgathayaan wataqayu adduwaar dawakid iyo walgathiyaan iyo wataqayu. gathiyaankuna waxa weeye qofkii inuu maaragtay lalabo ay qabato iyo wataqayu inuu matago wa istifraaqi mawaadin kayri dabiiciya in matagiisa ay soo raacaan waxyaaba oo maaragtay kayru dabiiciya fii ashkaaliha xagga shakligeeda aw alwaaniha ama midabkeeda waxyaaba kayru dabiici aan caadi ahayn inay soo raacaan waxyaaba gudguduudan waxyaaba madmadow dhuxulo wax maaragtay laga yaabo. sudaacun shadiidun madax xanuun daran ayaa ku dhacaya. hiqalun fi ladraaf adraafta lugaha iyo gamcuhu qaadi waayaya oo cuslaanaya oo amase khadar ama qofkiibaa sidii wax sarqaansan noqonaya oo amase wakhaz wuxuu noqonayaa sidii wax oo maaragtay dhacdhacaya oo xaraara zaa'ida ama xaraaro zaa'idahoo bihaa yacni ku imanaysa ruuxa oo buruuda shadiida ama qabow aada u daran baa adraaftiisa waa gamcihii wey. waxaaso dhan waa gamcaha khadarka iyo wakhiska iyo waa gergariir iyo laleymo iyo waxaas ama kulayl daran ama qabow daran farihii baa wada qaboobaya iyo lugihii iyo ama way wada kululaanayaan labadaba. 13 midda 13 ashucuuru wuxuu dareemayaa biana shayin maa in shay yansallu min aladraaf uu ka baxayo xagga maaragtay farihiisa faraha lugaha ama kuwa gamcaha inay ka baxayaan oo wax ka baxayo buu moodayaa. midda 14 aalaamun mutanawica xanuuno kala duduwan wa mutanaqila oo guurguuraya fii nawaaxi ljismi jasadka dhinacyadiisoo dhan. 15 taxaruku bacdi aladraaf faraha qaar oo dhaqdhaqaaqa wa ihtizaaziha iyo inay gariiraan. 16 kathratu lbalqam balqan badan inuu ka yimaado oo qofku qufac iyo balqan iyo waxaas ka yimaadaano uu yidhaahaa waraaqisi baci siiyo oo uu ku tuftufo. 17 zayqun waadix fi nadar indhihii oo wax ka arki waayo. 18 suduuru kalaamin bilaa wacyin hadal uusan ogeyn oo uu iskaga maaragtay dhawaaqayo oo iskaga hadlayo haddii la weydiina wuxuu leeyahay mana hadlay. 19 kathratu tasabub alcaraq dhidid badan oo kasoo shuma wabikhaasatan fi mandiqati dahri weliba qeybta dhabarka. 20 tasaaqudu dumuuc ilmo kasoo daadata aw saylaani alanfi ama sanka duuf kasoo daata bilaa sababin min zukaami wa naxwihi sabab la-aan iyadoo hargab iyo sambooriyo midna u sahayn. atathaa'ubu almustamir hamaansi fara badan aw tanahad yacni hamaansi fara badan iyo maaragtay cajzi maaragtay aan caadi ahayn baa qofkii ku dhacaya. 22 xokatun isxogid oo amase xubuubu nabaro findoobyo oo ixmiraarun fi ljismi ama jasadka oo guduuta. 23 ashucuuru bilciyaa'i inuu dareemo ruuxu daal alshadiid daran fi athnaa'i alqara'a inta qur-aanka lagu akhriyayo wacdami raqbati inuusan jeclaysanaynin fi ikmaali ruqyada in lagu taam yeelo oo markiiba bes buu leeyahay in laga joojiyo ayuu jeclaasanaya. 24 xuduuthu qashcariiratin isagoo dareemo xuduuth waxaa ku dhacaya qashcariira qamadhaca ku dhacaysa ama jiriraco tasrii taasoo gaaraysa fi anxaa'i lbadan jasadka dhammaantii. 25 qiyaabu can ilwacyi qofkoo dareenkii ka tago ama garashadii ka tagto caqligii ka tago wairtifaaci sawti tanafus iyo sawtkii tanafuska oo kor noqda shakhiir sidii maaragtay khuura oo kale oo khuuriya. 26 waxa weeye iswidaadu fi lwajhi wejigooda madoobaada fa idaa mastafraqa almariidu istanaara wajhuhu fa idaa mastafraqa almariid mariidka markii macnaha qur-aankii macnaha lagu dhammeeyo istanaara wajhuhu wejigiisii ayuu maaragtay markaas ayaa gadaal usoo iftiimaya laakiin marka qur-aanka lagu akhriyayo madoobaanayo.
khuruuju raa'iحatin kariiha ur qurmuuna ka soo baxaysa lilgaayati aad iyo aada u qurmuun munbacihatun taasoo ka soo baxaysa min almacidati caloosha can dariiqi ilfami xagga afka waa waxaa ka soo baxaya qurmuun aad u daran oo caloosha ka yimid 29 kahratu taqmiidi alcaynayn inuu indhaha mar walba isku qabto ow shukhuusuhumaa ama uu saa u taago indhuhu saa u taagaa ma libiqsanayo ama mar walba uu isku qabanayo 30 oo ah midka u dambeeya waxa weeye ashucuur inuu dareemo bimaraaratin fi lfami afkiisa qaraar in lagu tiray cinda sharbi ilmaa'i markuu biyaha cabayo almaqruu'i calayhi lagu dul akhriyey bacdu aayaati alqur'aan aayadaha qur-aanka qeyb ka mid a biyaha lagu akhriyey marka uu cabayo qaraar aad u daran ba afkiisa uu ka dhadhaminaya haada khaatimadu waxa weeye kitaabka wuxuu ku khatimay sheekhu wuxuu yidhi haadaa arrinku haadaa kani maa wafaqanii waa wuxuu i waafajiyey allahu alla tacaala sarreeye ilaa tadwiinihi inaan diiwaan geliyo min ruqa naafica in shaa allah oo ah ruqa anfacaysa in shaa allah wa wasaa'ila mashruuca lilcilaaji oo laysku daaweynayo intii loo tegi lahaa caraafaynta iyo saaxiriinta iyo kuwa saxmada gembiya iyo kuwa gacanta wax ka fiiriya iyo kuwa kitaabada roga iyo kuwa maaragtay dadka dalaasiimta iyo sixirka iyo balaayooyinka u qora intii la aadi lahaa wuxuu leeyahay cilaajkan mashruuc ahoo wanaagsan ayaan macnaha idiin qoray saa'ilan allaha subxaanahu anigoo ilaahay weydiisanaya ceeb la-aaya an yataqabala dalika minii inuu aniga arrinkaa iga aqbalo biqabuulin xasanin aqbalid wanaagsan wa an yacuma binafci dalika inuu ku caam yeelo arrinkaa anfaciisa kula muxtaajin ilayhi qof kastoo u baahdo min almu'miniina ka mida mu'miniinta waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah ka mida wasala allahu allaha u naxariisto wasalama ha nabadgeliyo wabaaraka allaha barakeeyo calaa cabdihi addoonkiisii wa rasuulihi rasuulkiisii almabcuuthi loo soo diray raxmatan naxariis xaaluu yahay lilcaalamiina caalamiinta sayidinaa sayidkeeni maxamed ahaa bin cabdillaahi wiilkiisii wacalaa aalihi ahalkiisii wa saxbihi asxaabtiisii waataabiciina lahum kuwii raacay iyaga biixsaani wanaag ilaa yowmi iddiin wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kitaabkan marka sida aada muqadimada u horeysa ama taqdiimka u horeeya ku arkaysid waxaa soo taqdiimiyey fadiilatu alcalaama sheekh doctor cabdullaahi bin cabdiraxmaan aljabriin ayaa soo taqdiimiyey kitaabka bilowgiisii baan ku laabtay markaan dhameeyey taqdiimkan baan yar akhriyayaa bal sheekhu sida uu u ammaanay kitaabkan sheekhu soo ururiyey wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa ashrafi alanbiyaa'i waalmursaliin ilaahay baa mahad leh rabulcaalamiinka wa sala allahu allahu naxariiso wasalama allah nabadgeliyo calaa ashrafi alambiyaa ambiyada kii ugu sharafta badnaa waalmursaliina iyo kuwa la diray kii ugu sharafta badnaa nebiyinaa nebigeenni muxamedin moxamed ahaa wa calaa aalihi aalkiisa iyo wa saxbihi asxaabtiisa ajmaciina dhammaanba salaad iyo salaam korkooda allaha yeelo amaa bacdu intaa ka bacdi faqad waxaa dhaba buu yihi sheekhu qara'tu inaan akhriyay haadihi risaaladan fii mowduuci alcilaaj oo ku saabsan mowduuca daaweynta biruqyati sharciya tufidda sharciga oo min alqur'aani qur-aanka laga soo qaatay walaxaadiida saxiixa iyo axaadiista saxiixa si u taskiyeynayo sheekhu fiiri qur-aan iyo xadiis saxiixa weeye buu leeyahay waxaa ku soo arooray risaaladan ama kitaabkan mowduuca cilaajka waqad waxaa dhaba ajaada inuu hagaajiyey wa afaada uuna faa'iideeyey akhuunaa walaalkeen khaalid bin cabdiraxmaan aljariisi fi lintiqaa'i sida uu noogu soo xulay iyo walikhtiyaari su u doortay aladciya annaafica ducooyinka naafica ah athaabitati min annaqli oo ka sugan xagga naqliga wal-aayaat iyo aayaadka alqur'aaniya qur'aaniga almunaasiba iyadoona munaasibka ku ah dadka lagu tufayo baxaydu yatamakanu iyadoo uu heli karo kullu insaanin insaan kasta caaqilin oo caqli leh caarifin oo wax garanaya an yastacmila inuu isticmaalo alruqyata ruqyada bi haadihi nusuustan calaa nafsihi naftiisa uu ku tufo wa calaa ahlihi ahlkiisa uu ku tufo wa yaqra'a inuu akhriyo haadihi alaayaat aayaadkanna waa inuu akhriyo wal adciya iyo ducooyinkan
كورد دائم سيدي ورد دائم إنه روح وأخره لما بدأت حنوسان أو كله إن كتاب كان أنت صوغتان أي أو صوفرتان مركز كبعد أي ورد دائم وأخريان وما نول بقى أخريان آيات كالرقادة إيو وحي ودان أي أخريان صدح القيبوض وهوري إيو قيبت أذكارت إيو تحسيناتك انتاس أي آدو أخريان صباحا صبحي ومساء قلبتي ليكون سوء هذا حرزا حرز إنو كون نقضو كو إلالية الله إساق إلالية من الشيطان وعوانه يكوى إساق الشيطان كأكالمي فجزا الله إليها أبا المريو الكاتبة كاتبك أحسن الجزاء أبا المريو وناكسن وجعل هيا لو سعيه شقدي سان مشكورا لغو شكريه وعمله عمل كيسان مقبولا من الله أقبلي وصلى الله على محمد محمد كركيسة اللهم نحرسه وآله آل كيسة وصحب أصحاب تيسة وسلم الله النبت قليو مركا كتاب كينا هالكاس أيو كل ماضي كنتي قفكي استعمال كتاب كان وحان أرجينينا إنه إلهي سبحانه وتعالى وحا حنونه هيا وكاقا قاضو ننكي كو أخري الضدكنا وحان أرجينينا إن شاء الله تبارك وتعالى إلهي إنه رقيدي سنافع كدقو ومد أنفع إلهي كدقو ضدكنا وإني يعني تنو كله أما رقيدة نوعان وكتابك السنة أي آمنان ويسكدايان ميلها كله أي آديان قفكنا ودو إلهي كوكال صونادو الله سبحانه وتعالى إساقا كافية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته